wargabdhaha Soomaaliyeed in nimankan 24 saac idinka waaninayo oo aad guryahooda ku socotaan ee meelaha idin kula ballamaan aad ugu tageysaan tayareeya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان إذن سلامي دمان أخيارت قيمها إيقا مضان ميلك السؤادون كأكا جوكتان اسكو سو نقض أركتو ونكسن مركله ولكن عبد الله مع الحسين وآلا باكلا سعوتان channel كان قروح ذا قويس كتو إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون قبر داس أقباد علي عبد الله رنتي أو أحيد ميت كميدا أرضي ذا ديكتا إن جامعة كوية المقالة برعو أحيدنا هوية الصوماليات أو صد حرور هيسته قبر داس ولاشينا وقبل داير مقالك صور كذا إذن مغضو آدنا وأقوحهم هاي فلك أرحم درده نينك أوجيسي أن حيرين دين الصومالي نمن بين ما أنتوا أردن وحن أوجوجنا لما جربا لكوف صدي سدح جربا لكوف صدي شلي بقى قدام بيسي ومعلن دوسي قبر شنجرة يمد سجال جرأة ودوسي ودقي وقرآنك وسوق بريء لو قبطي مركب ولا ليه قبلها الصوماليات maxaa dhibaatada intaas leeg aan ugu geysanayna maxayna ka galabsadeen war gabar maanta aad heli karto oo aad dhihi karto war aaba iyo hooyo waxba ma haysto laakiin gabadhiina waan dhaqanayaa isiiya biilkeedan baxsan karaa laakiin lacag kale ma haysti aan sooriye ku bixiyo aroos aan ku dhigto meherkeeda aan ku bixiyo ma haysti ee gabadhiina isiiya adoo dhihi kara oo aan lagu diideen hadiiba aad tahay qofkii la doonayay maxaa kalifay ina gabar Soomaaliyeed in intaan guri geysana ku soo kufsano waliba kufsanaye maxaa keenay haddana inaan toori ku sii dilo toori in haddana gabadhii la sii galgaliyo oo naftii laga rido maxaa keenaya maxaa nafteeda loogu quuri laayahay inay sii noolaato gabadha Soomaaliyeed sharaftiiba ka qaadeen la dhibaatay la kufsay waay marka keenayo oo nagu kalifayo in inta toori aan soo qaato gabadhii markaan danihi Allah ka gaaro way ii sheegaysaa awgeed aan u qurgooyo xishoodkii aaway diintii aaway Soomaalinimadii aaway wixii aan sheeganayna aaway qodobka kale leeyna waxay tahay wargabdhaha Soomaaliyeed oo idinku laftirkiinuna sharaftiina iyo sumcadiina ilaashada inta xuquuqdiina laga hadlayo in runta la idin sheegana waa wax meesha ku jira ayaan dhaweetay ahayd wixii ku dhacay Xamdi Maxamed Faarax wiil inta la ballantay hotel la tagtay dantii la lahaa markii laga gaarayna dabaq laga soo tuuray idinku laftirkiina isxakameeya nimankan idin la ballamaya ee waxa weeyaan guryaha aad ugu tageysaan ee meelaha ayagu ay leeyihiin oo aad ugu tageysaan iska daayay ninka danta kaale ee damaca adiga kaale ee raba inuu kula sheekaysto adiguba guri baad ku nooshahay hadiiba laga maarmaan ay noqoto anu maba ku talin lahayn hadii laga maarmaan ay noqotay meelaha public ah oo aanad uga cabsanin maanta ninka inuu idin ku dhibaateyn karo la fariista oo kula sheekaysta hadaysan ahayn daruuri maba ahane meesha adigu aad degantahay ilaa adigu duurka ma aadan soo bixinay guriga adigu aad ka soo toosto ninka danta kaale inta kuugu yimaadaha kugula sheekaysto maxaa yeelay waxaad badbaadinaysaa bulsho kale oo Soomaaliyeed waayo gabadhu markay nafteeda badbaadiso waxa ay badbaadisay bulsho Soomaaliyeed halka gabar waa bulsho Soomaaliyeed waa marka hadii naftaada adigu aad badbaadisay waxaad ogaataa in aad bulsho Soomaaliyeed oo kale aad badbaadisay marka taa laftirkeeda idinku qalad waa ku leedihiin nimankan 24 saac idinka waaninayo oo aad guryahooda ku socotaan ee meelaha idin kula ballamaan aad ugu tageysaan tayareeya waqtigu ay taqaaneen ma aha waqtigii hore ma aha adduun waa isbedelay niman horor ah soo baxay horor ah dadkii la yaqaanay ma aha niman horor ah ayaa soo baxay oo jaanis gaadayaal ah oo mar uu raba gabadha Soomaaliyeed sumcadeeda inay ku tuntaan imisaanu ognahay oo gabdha Soomaaliyeed u wada afduuban yihiin inta muuqaal ka duubteen mobilada ku wada haystaan oo xilligay u baahdaan inta u yartaan haday gabadhu ka diidana ugu hanjabaya in ay muuqaalkooda baraha bulshada soo dhigayaan gabadhuna marka fuxshi iyo fashil ay ka baqanaysa awgeed dantu ay ku kalifayso xilli alla xilligii loo baahdo in intu ninkana u yartay ay u tagto wax alla wixii la doonana laga soo sameysanayo how many aan ognahay oo aan la soconnaa oo aan la aamusanahay idinkuna sharaftiinu gacantiina ayay ku jirtaa walaalayaal murugadiina ayaana dishay saan oga hadalaba hadda waa garan la'aan maxaa yeelay hadiiba la idin waaniyo oo waanadii ilan dhagihii waana qaadanaya aanad waanadii qaadanin yeydu noocaas idin wada cunaysaa
كتحدر قبضو شرفت هذا قعنت هذا إيه كجرتها ما أها قبض الصوماليات شرفت هذا إني أنا إجر هذا نسو وأنا قعنت هذا إيه كجرتها ما أها نك إيه ليش كسنة قعنت يسوكم جرتو شرفت هذا أديك أي قعنت هذا كجرتها قابك إيه كجرتو وهي إيه مية لبضع أم قعنت أم بشرفت هذا طه ما السمانة إيه هي أود داسنا إلهي أديك هو كسي سماه ورهدي لقوا هذا فيديو كول بانكاسو وعياد أقبشه muuqaal laga duubta baraha bulshada lagu soo dhigo awoodaas ilaahay uu ku siiyay haa iyo maya intaad ka tilaabsatay aad awoodaadii qof kale gacanta u gelisay oo hin iyo lagu baroorto waxba ku tarimayso inta lagula ballamay kaamira meel lagugu xirtay wixii la doona laga sameystay hadhowna lagugu hanjabay haddaad mar kale ii iman weyda muuqaalkaagan ummadda u baahanaya awoodii markii hore adiga gacantaada ku jirtay laakiin adiga ayaa sabab u ah in aad awoodan qof kale gacanta u geliso ka taxadara halka aad cagaha dhigaysaan ka taxadara niman horaro ah oo wadayay ay baa soo baxay runtiina aanan ka fikirin Soomaalinimo iyo diinna midna aan xirinin walaalnimo iyo ehelnimana aan xirinin oo u caddahay kaliya qaabkii uu goolashan u dhalin lahaa sharaftaadana uu ugu ciyaari lahaa taa markii inaad iska taxadartaan idinka ayaa idinkaga baahan yahay biidin halbaari wixii canaan aad kulay walaaltinimo ba iga tahay xumaan kale igama ahane ka raali ahaada oo sharaftiinana idinkuna ilaashada aad iyo aadna waan ugu xunnahay gabadhaas walaasheena dhibaatada ku dhacday ninka horarka ee yeeyda ah ee Soomaalinimada iyo Islaamnimada midna aan xirin oo kula dhaqmay aad baan uga xunnahay waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala xukuumadda Soomaaliland in gabadhaas ay xuquuqdeeda rasmiga u soo dhicin doonaan isla markaasina aanu maqli doono war aan ku faraxno hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa gabadha ilaa xuquuqdeeda banaanka ay timaado taa ka walba oo la dhaqaajiyo inaan idiin soo gudbin doono hadduu Ilaahay nafta nagu simo biidin albaari kullay midii ugu horeysayna ma aha waa dhibaatooyinka maalin walbaaba dadka damiirka Soomaaliyeed ee damqada aanu ku jirin mid islaamnimo iyo walaalnimo midna aanu ku jirin ay nooca 24 saac ugu la dhaqmaan gabdhaheena qiimaha badan ee sharafta leh ee Soomaaliyeed marka talo iyo tusaale bal waa isku soo laabanayna waxaan rabaa muuqaalkan yarka inay ila daawataan kadibna isku soo laabano insha Allah ta'ala hooyooyinkii way dhiban yihiin sidaas oo midhan baa nagu dhacaysa maanta mag haddii laga qaato ta dambe noogu xigta 3 guriga 4 guriga joogaa la qaadanaya oo loo soo degsanaya ma noqonayso ma doonayno waniyad xumo iyo marar dilaac aad u weyn runtii war heed niman yahow gabdhihii Soomaaliyeed waa ciribtir horta gabdha Soomaaliyeed ma noolo waa ciribtirnay gabdhihii Soomaaliyeed maanta waxa ay taagan yihiin heer ah nin walba oo u arkaan inuu ninkan yahay Soomaali in ay noloshooda ka fogeeyaan taana ma ahan mid iyagu ay doorteen waa mid inagu aan u doornay oo inagu aan ku kalifnay warta la kufsanay laba jirka waa Soomaali ta ayadoo ilma haysata lagu dayacay la dhibaateynay waa Soomaali ta markii la furo kadib la dilay waa Soomaaliyeed ta inta niman loo balansada inta la kufsado dabaqa laga soo tuuray waa Soomaali war inagu hadii aan raggi Soomaaliyeed nahay damiirkii iyo damqashadii diimeed xagee naga aaday Soomaalinimadii xagee naga aaday war miyaanan fikirin oo aanan ka fikirin gabdhahani inay yihiin kuwa la dhashay noo dhaxay na dhalay aan dhalnay ama dhali doonaba inay yihiin miyaan ogsoonaan la'nahay maanta gabadha Soomaaliyeed ee aanu dhibaateeno hadaan nahay ragga Soomaaliyeed in ay ilmahanaga ka jiran tahay laga yaabaa walaaladeena ay ka jiran tahay ama inaga laftirkanaga ay dhibaatadaas nagu dhacdo inta miyaan fahmi la'nahay aw diintii aan sheeginin magaalada Burco marka laga soo tago magaalooyinka kale ee gay Soomaaliyeed ay degto waxaan isleeyahay waa magaaladii ugu rooneed bay ahaydba magaaladii ugu rooneed ayayba ahaydba ayadina waa tan hadda warsidan intaan isu dhaano gabdhaha Soomaaliyeed waan dhibaateynay dhibaatadan Ilaahay dartii bal wax kale xeerin weynay Ilaahay dartiis aan uga harno ugu daano gabdhaha Soomaaliyeed markii nooca loo dhibaateeyo hadda waxa la kala qaataan ognahay because of ninkan hadduu og yahay in inta tiirka la geeyo la dilayo ama la tooganayo waajibkiisa la marsiinayo hadduu og yahay station inta isgeeyo isma aanu xiri lahayn isagii baa gacmihiisa intuu isku geeyo stationka isku soo xiray isma aanu xiri lahayn wuxuu og yahay in ay ka dambeeyaan odayaal caada qaatayaal ah oo bakoorada iyo koofiyadooyin waaweyn wata oo waxa weeyaan sicir barar inta ku dhacay aan abaarba ka bixinba gabadha maangeliyan idinkaga nahay gabadha hadda adinku dhasheen waa idinla dhalnay
وإذن كجف لنا قلت كان برجل هذا إذا قبنا يسو وإن أنكو قبصون ما أدون يسو أذوق ما أنت إيه قبصون وضيال اللي يرادو أيها كأبو رنجو ده هذا الصومالية والصومالي ملول بيجوك تلاده وأنا حرسو جيرين ومروا الباب اللي جوب بهدلة قبلها الصوماليات حير كان ما أحمد حدرتان أقبات كوب لابنا إيه مدة يسوجي تمي ها وأنا كالسوني ده حدرتان نينكا كوك اللي فتى إنه استيشن إسجايو الصعرة وحن طلبنا إن عدالة رسمية إني قبل أهلي دونتو بإذن الله الكريم كالسوني ده نينكا استيشن كأسوق يعني إن على جور ورجين أو تير كأنت اللي جاب بالشدة أسر يبرع عورته هذا اللي قلتوكتو إن هالك اللي قلتوكتو haddii ninka dhibaatada geystay ee gabadha Soomaaliyeed sharafteeda inta ku ciyaaray oo sharafteedii burburiyay kadibna dhimasho iyo dil isugu daray haddii sida lagu cafiyo waxaad ogaataan qaar kale oo noocaas oo kale inay soo bixi doonaan oo burco ay noqon doonto bahal la galeen haddii aan cayayaanka noocan oo kale la iska buufin oo la iska qaban sheekadan way socon doontaa burca waxay ahayd magaalooyinka ay Soomaali degto meelaha ugu roon anu xaqiiqda in kala hadlay meelaha ugu roon bay ahayd meelaha ugu roon oo isleeyahay waa meel laga diiday in fan iyo show iyo lagu qabto meel music laga diiday waxyaalaha hoos dhan laga diiday xogteeda waa la soconaa meelaha ugu roon bay ahayd waatan haddana waa ka bilaabatay waxaan inay mashruuc tahay baba anigu u fahansanahay laakiin in ninka xuquuqda gabadhaas ay mudneed la marsiiyo waa waxyaalaha shacabka Soomaaliyeed maanta ay codsanayaan ودبنا ظلم اللي قد لي وحويا دبعتها سنة لوجستي وحن رجينا إن شاء الله تعالى حكومتنا الصومال لان إن قبض أي حقوق ذا الرسمي جا أسود عندنا إسلام مركزنا أنه مقل دون ور أن كفر إحنا هدو إلهي راضه مقال كان مسي وذكره الكأيان كسو قوبيا ولكن عبد الله مع الحسين وحنا ذيك جت جيا سيدا سينا بتقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.